go-aankii horta kulankii labada xisbi saaka alxamdulilah wakaa guddoomiye cira idiin akhriyey anugu tahay waxa weeye waan si yara adkaynayaa waa ogtihiinoo madaxweynaha muuse bixi markaa 2 sannadood iyo dheeraad buu joogay madaxtooyada 2 sano waxaanu ka shaqaynaynay muuse inaanu la shaqayno oonu ku dayno bal cooperation sidii ay waddanka inagu dhaclay doorashadaasoo aad iyo aad inagu muhiima ayaa ahayd muuse waa si kasta waa yeelay waliba anagu special labada xisbi waa isku keeninay qoladan ee waddan dhowr jeer baanu ka kicinay meel ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go'aan bayna la gaadheen waan wada saxiixnay 2 jeer labadii jeer baa hadda waxa jabiyay madaxweyne muuse jabiyay maruu baarlamaanka ilaa mooshinka hal gelinina iyo maruu xubin lagu muransan yahay oo sharcigu diidiyo intuu keenay waliba uu hadda yiri reer baa diidan waliga waan arki jirnay xubin la diido oo waliba xubinta la diido waxa keen jirtay asxaabta caado ma ahayn inuu madaxweynuhu xubin u keeno ay contribution noqoto markaasuu reer dhan oo wanaag iyo sharaf ka mudan Somaliland ayuu yidhi haddii aan xubintaas celiyo sharciga aan doonay reer baa xanaaqaya oo waxayna soo marin taas waxa ku soo maskaxdiisa reer ku wax kale ku qufulin ma jiro waxa weeye muuse bixi wax kasta waa ku dayn 2 sannadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaane dibadda ayaa waddanka xukunkiisii dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way urtino wasaarad quro shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta isoo ururi oo maanta cashuurta halka marinayso ay naga wareegeen baacmisharigii oo dhame oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kale maanta wasaarad shaqaynaysa dalkeena fakshan garanaysa ma jirto waa ogtiinoo dynamics ba ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaaradda lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteena waa reersiga way maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogti inta xeebta ka gasho maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaadri ayaa ka wakiila oo galay shararka reersiga loo sameeyay taas muuse bixi wuxuu gudihii u baabi'ay haddana dalkii uu khiyaamo ku sameeyay telefoon baa la ii soo diray 10kii bisha diyaarad biska fuulay 800 milyan oo dollar oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yiri 30% baa yeelanaysan laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulma oo Djibouti kula kulma message-ka waxa siday ninkii inta siday international committee siday waanu diidnaa aqoon rigna fadhiyo anagu gacanta hoos galsan mayna dawladdaanu heshiiseen 800 milyan baa loo sheegay adaa idin sheegaya waa ka hangalaysay 45 mirir ayuu dalkii Soomaaliland ku xaraashay 45 mirir qoray wada joogeen maxaa sababay markaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia farxadii wuxuu tagay waddanka Imaaraadka wuxuu yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya waa heshiisay waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo kaliya magaranaysaa raali galin ka bacdina alloore hargeysa la geeyna alloore saasoo sheekada ku timi waa iibsanahay Soomaaliland uma ka dabaaldeg ka dhacay xamar iyo maxay magaranaysaa meeshii garbahaariyo koonfurdhan alloore nimanka soo socday way ragii dadkii mucaaradka ahaa ee ku taagnaan waxay leeyihiin war waa intaas ku filaydeen madashi oo kale iyo horta wuxuu sameeyay khiyaanad cudma uu sameeyay hadday maanta jirto golayaal iyo shacbina day uma suurta gasheen waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisan waa ninka markii uu soo noqday ummadda uu waramin wax ku wada hadleen waa ninka markii imaka uu yimi Axmed Shidaan wax ku wada hadleen cid la wadaagin 2 jeer bay gaar isku arkeen subaxdii iyo habeennimadii markuu ka soo dhamaystay buu 4 wasiir u ka wada cashayn abada bato markaas uu sheekay wixii laakiin nuxurka lagu sheekay kama hadlo
وكتجي موسى وكتجي مدحنمو يا الشرع وكتجي هذا وحنا وشيقنا هذو الشرع كتجي والشرع وكتجي وحاو كل دقاقه أنا قلنا الشرع وكل سعون مدحوين نقول مايو مدحوين موسى بيحبوا نقولنا هذو إلى أعد يفرضون بابينيا أو شرع وقتي جامن جينيا أو شاربان طلانيا وحنا مدحوين المتي هذو بشا جودي هذا تايمز قال سي لا بش التوبن كده هذا قرق هذا وياه مدحوين نقول مايو عشور وقارن يعني ما شفته عشور يحمودي من أبي بحمودي عشور شعب السماء بحيه كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية وحنا كشرنا مع العقد قالت خاين كنت وليبه وخاين من العظمى وي هل أنا لقوا حشمون ما أنت غير والدبل الجليل أنا ما شفته غير كود واركي سو ما وياركتي أدونك واركي وخاين أفكي شيء أوركي ستلين هران وشاك لما قاعد كده سودمي أنا أفوينا نقول نقول دوني أفوينا ردني أفوينا ردني أفوينا ردني وأنا قردنا هذا كان أبيوس كده سواء كردنا